diyaargarowga ciidda ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan dalkani koonfur afrika gaar ahaan magaalada Cape Town oo ay si weyn ugu badan tahay Soomaalida waxaana suuqyada waaweyn ee magaalada lagu arkayay dad u badan haween iyo caruur kuwaasi oo iibsanayay dharka ay ku ciidi lahaayeen munaasabada ciidda suuqyada waaweyn ee magaalada ayaa la soo buux dhaafiyay dharka noocyadiisa kala duwan oo loogu talagalay labiska munaasabada ciidda waxaana sidoo kale ay indhuhu qabanayeen caruur ay waalidiintu gacanta ka hayeen si ay ugu iibiyaan dharka ciid haddaba qaar ka mid ah muslimiinta isu diyaarinaysa ciidda oo ay ugu horeyso Soomaalida ayaa telefishinka caalamiga ee Hon Cable u sheegay in sanadkani uu ka bedelan yahay sanadkii hore waxayna xuseen in sicirka dharku uu ka jaban yahay kii hore. magacaygu waa Shukur Jaamac kuna nool Cape Town maanta waa maalin aan u diyaar garoobayna ciidda maxay ahayd u jeedin dadka xoogaa suuq u fiican waa iska iid meel kasta ka fiican suuqa soo maleynaa alxamdulillah waxaan la sugnaa maalmihii ciidda maalmo yar ka hartay maanta waxaan soo aadnay xagal ciidkii dharkii guryihii nidaamkoodii wixii dhamaayba waaba ku cusbahayba waa damaashada ma taaganahaba wallahi farxad iyo reeraan ku soo dhaweyn insha Allah billahi Town, welcome Somalia TV. Yes, of course, because they're preparing for Eid and this is last minute shopping now. So everybody's in a rush, everybody's trying to get their last bits and pieces before Eid. ciidana maartay insha Allah taala qurub waa isku gaarnaysaa Ilaahay rahat waa kana qamiista aan wadana caruurtii kulli misay waan wada keenay kaamil Soomaalida waan wada arkayna insha Allah taala waxaan rajaynaynaa Ilaahay maartay كذا كلي ونود إبراق نوجاسي إن شاء الله تعالى كلها خير. بيننا وأنا فرحنا وأنا إن شاء الله أشوف جرينا يوم عيد واحد كلمان وأنا سلام يا جماعة أمة الصومالية. shopping عيد أو معنا يالك وعيدنا عفوا يا وعيدنا وحن. maalin ay dadku soo dhaweynayaan maalinta ciidda ee fooda nagu soo haysa ayaa dadku waxay ka tukaamaysanayaan dukaanka xaafadda Athlon ee Soomaalida aad ku degan tahay Xasan Maxamed Shire on Cable TV Cape Town.